maraykanka hore ayuu sidaani oo kale u sameeyey laakiin hadda Cuba iyo Colombia ayaa loo digayaa aan kula wadaagase maraykanka howlgalkan oo kale ayuu doonayay inuu ka fuliyo Soomaaliya laakiin maxaa ku dhacay ciidamada Delta Force ayaa waxay isku dayeen in howlgalkani oo kale oo afduuba inay ka fuliyaan Soomaaliya waxay la kulmeen guul darro military oo aad u culus waxay noqotay cashar taariikhi ah oo aysan weli hilmaamin taasoo wax ka bedeshay qorshihii maraykanka marka uu doonayo howlgalladaasi oo kale inuu fuliyo sanadkii 1993 ilaa 4 Oktoobar waxaa loo bixiyay howlgalka Battle of Mogadishu yani dagaalkii Muqdisho maraykankana magac kale ayuu u baxsaday howlgalkaasi bartilmaameedku wuxuu ahaa in la qabto General Maxamed Faarax Aydiid iyo xubno kale oo hoggaankiisii ka agdhawaa waxay doonayeen inay fuliyaan howlgal degdeg ah oo 30 ilaa 60 daqiiqo oo kaliya qaadan kara yani wax ka yar hal saac waxay doonayeen in si toos ah u soo qabtaan bartilmaameedka ay doonayeen oo ku sugnaa magaalada Muqdisho waxay adeegsadeen diyaaradaha helicopterska oo Black Hawk ay kamid ahaayeen laakiin yaab iyo argagax ay la kulmeen howlgalkooda maadaama ku dhif oo ka dhaqaaqay doonayeen oo kaliya ay doonayeen inay generaalka ay ku soo qabsadaan waxa la isweydiiyay kadib maxaa dhacay laba kamid ah diyaaradihii dagaal ee Black Hawk ayaa la soo riday ciidamadii maraykanka waxay ku xayirmeen xaafado ciriiri ah oo magaalada Muqdisho ku yaala ciidamadii hubaysnaa iyo dadkii deegaankana waxay go'doomiyeen ciidanka dagaalku wuxuu qaatay 15 saacadood waxay doonayeen wax ka yar hal saac inuu qaato laakiin 15 saacadood ayuu dagaalkaasi qaatay qasaaraha ka dhashay wuxuu ahaa 18 askari oo ciidamada maraykanka kamid ah in halkaasi lagu dilo in ka badan 70 la dhaawaco boqolaal ruux oo Soomaaliyeed ayaa howlgalkaasi ama dagaalkaasi lagu dilay xilligaasi midadkii askartana wadooyinka Muqdisho ayaa lagu jiiday oo dad badan way xasuustaan maraykankana ilaa iminka waa xasuustaa taasina waxay saameyn weyn ku yeelatay aragtidii ciidankani laga qabay marka la joogo caalamka haddaba waa maxay cashirkii ay ka barteen maraykanka marka howlgalkaasi wuxuu noqday jab istiraatiijiyadeed oo maraykanku uu ka bartay ilaa 4 arrin magaalo colaadeed inay tahay mid aanan fududayn in ciidamadani oo kale ay ka howlgalaan oo ay bartilmaameedsadaan shakhsiyaadka ay doonayaan laakiin taa beddelkeeda iyagii ayaa la go'doomiyay arrinta kale ay ka barteen waxay sirdoonkooda sida uu liitay waxaana xilligaasi si weyn loo hoos qiyaasay yani aan lagu sii tashan awoodda dhanka hubka iyo abaabulka ciidankii Soomaalida taageerad siyaasadeed ma aysan jirin waa cashirka saddexaad ee maraykanku ka bartay tan kalena waxay saameynta siyaasadeed ee degdega kadib dhacdadaasi taasi waxay keentay inuu maraykanku ka baxo Soomaaliya sanadkii 1994 iyo inuu ka fogaado howlgal kan la mid ah uu ka fuliyo qaaradda Afrika waxaana ay cashiradii ay ka barteen xilligaasi ay ku dabaqaan howlgalladii ugu dambeeyay ee maraykanka uu ka fuliyo meelo badan oo caalamka kamid ah adiga maxay kula tahay aragtidaada la wadaag like sar muuqaalka la wadaag saaxiib